بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa TV ga caalamiga Universal studio-giisa faaqadaada oo ku yaala bariga magaalada London sidaad ku warateen furitaanka barnaamijka caawa waxaan idin haynaa special Suki Sweden waxa studio-ga marti noogu ah gudoomiyaha ururka weyn ee sportiga ka dhisan wadanka Sweden magaalada Stockholm Mr. Faisal Farah Makaran. Faisal markuu qoraysa ku soo dhawow faqadada ciyaaraha Universal TV. Waa maasantahay walaal Cabdi Naasir adiga dhamaan bahda Universal TV. Faisal ururka Suki maalin walba waa maqalnaa website-yada ayaan ka maqalnaa TV-yada ayaan ka maqalnaa radio-ska ayaan ka maqalnaa goorma la aas-aasay yaasa ka dambeeyay aasaaskiisa Suki. xaqiiqdii waa sax ururka Suki waxaa la asaasay waxaa la asaasay 2005 ayaa la asaasay waxaa ka dambeeyay dhalinyaro degan Sweden oo sports ah jecelaystaan inay wax wanaaga ka qabtaan sportiga Sweden iyo Europe oo dhanba magaca Suki wuxuu ila egyahay af Soomaali ma ahan SEUKI maxaa laga soo gaabiyay waa sax weeye waa erayo Swedish ah oo la soo gaabiyay haddana Swedish ku sheego waxa la yiraahdaa waa Soomaaliska Eurobeeska ungundom culture og idrott oo micnaheedu tahay Soomaalida Europe dhalinyarada dhaqanka iyo sportiga magaca meesha ka yimaaday okay qaabka la isu soo doorto sababtoo ah ururkiina waxa kale lagu arkay inuu ka duwan yahay ururada kale sportiga ee Soomaalida qurbaha ka dhisan iyo wadanka Soomaaliya qaab waxa jira la isu soo doorto oo sanad walba shakhsi cusub oo kamid ah dhalinyarada xubnaha ah la soo xulo kaas waxay noo sheegay waa xaqiiq waa sax weeye sanad walba intaad arkayseen waa ama la maqlay 2 sano oo ka duwan oo shakhsi 2 sano soo qabtay baa jira inta kale waxay ahayn hal sano sababta keentay waxay tahay markaan fiirinay hawsha aan qabanno baaxadeeda culayska ay leedahay shakhsiga uu yahay shakhsi shaqaysta family aan isku qaban karin ama isku awoodi karin inuu 2 sano iyo 3 sano ka shaqeeyo hawshan ah maartayda mid kale oo culayskeeda leh ah suun u daalin oo loo helo qof dhalinyaro ah ama qof kale oo ku jiro oo carboon oo fudud sanadka dambe soo dhiibo waxaan leenahay guddi doorasho guddigaas oo ka baarandaga sanadkan hadda jaawa shaqo hawshooda way socotaa
kolley ikaa soo bandhigi doonaa bilaha nugu soo foodle qofkii noqon doona guddigaas oo kasoo fikira oo soo sameeya qofkii noqon qaban lahaa iyo hawsha sanadka soo socota marka wayna habboon tahay xaqiiqdii because saan hore kugu sheegaba waxaa habboon shaksiga in uu sanad keliya haayo maadaama aad u adag tahay hawsha aan qabano waad dareemi kartaa 14 kooxood oo ka kelimid 12 wadan oo kala duwan intaasoo dhalinyaro ah oo gaatiradoodu gaaraysa ilaa 600 oo qof dadkii kasoo qaybgelaya labada isbuuc keliya oo ilaa gaaray 20,000 maalin walba ama 10,000 ilaa 20,000 u dhaxaysa waa hawsha ay qaban jirta dawladda annagoo markaa 12 qof ahna hawshaas ma la awoodi karo marka sababtaas awgeed aan u sameynaa inaan sanad walba sameyno dhiig cusub shakhsi cusub oo hawsha u fududaato okay Faisal waxaa jira arrin muhiim ah oo xilligan ku sugan tahay caasimadda waddanka Ingiriiska magaalada London si fiican ula socotid maalintii la furay kooxda SSA UK Somali Week oo laga furay waqooyiga magaalada London waad ka qayb gashay waxaad la kulantay maaragtay dadkii qaban qaadiyay ciyaaryahanadii si gooni ah ayaa lagu casuumay kadibna galbeedka magaalada London waxa ka furmay Somali Week ayaa ka furmay isagana waa lagu casuumay si sport ayaa u tagtay waa ka qayb gashay si fiican ayuu u dhacay sheekooyinkaas inta badan waxa la yiraahdaa idinka soo bilowdeen laakiin erey cusub ayaa ku soo darteen la yiraahdaa tanaasul oo ka baxdeen marka khibraddan aad soo qaadateen dhanka Sweden maxaad halkan aad u keeni weyseen dadkii loo mataaneyn waayay wallaahi waa runtaa weeye kolley labada urur ee ka jira halkan ee hawsha kala wada hawl lixaad leh oo qabtaan oo wanaagsan waxay mudan yihiin in lagu ammaano labadoodaba because waa dareemi karaa qofkii ku dhex jira ciyaarahan ama qabashadooda ama dad isku keena ayaa ogaan kara culayska ay leedahay marka ilaahay ha u fududeeyo hawl fiicanna way wadaan xaqiiqdii waa saa u sheegtay waaye waan soo marnay xilli laba meel lagu kala qabtay inkastoo aad u yareed annaka xilligeena 2 sano ay ku ekeyd alxamdulilah way soo dhamaatay rag ayaa u baxay haba ugu horeeyo magacaan ha lahaado aabaha sportiga reer Sweden Bashir Jenyo oo u istaagay gacan lixaad la ka qaatay in la mideeyo la isku keeno labada ciyaarood la qaban lahaana kolley erey nagu yaraa waayadan dambe haddaan Soomaali nahay oo ereyga ah tanaasul inay group ka mid ay sameeyeen maasha Allah annagana waan ku taageernay waan ugu soo dhaweynay haddana saad ula socotid ama aad uga ogsoon tahayba waxay tahay hawsha waa la isla wada qabtaa wax walba meelaan ka soo wada jeednaa insha Allahna waan dareemi karaa aad iyo aad ugu fiicnaanay dhalinyaradan reer Ingiriiska maasha Allah ay ka hawl fiican ay ka qabta haddana waan u soo jeediyay aniga labada meelba markaan tagay labada meelba waan ka soo jeediyay inay midoobaan Soomaalidu waxay dhahdaa dab ninkan ku guban baan ka leexan waxa dab ninka qofka markuu ku gubto uu dareemo uu ka leexana marta laakiin haddaad hore ugu guban oo ku istaagaysa marka xaqiiqda annaka hore aan soo aragnay tafaraaruq iyo kala dhac hore aan soo aragnay dad kala qaybsan alxamdulillah ay kana kulli wax walba waqti bay leeyihiin waa wax ilaah ka qoran waan u rajaynaynaa inay isku soo dhawaadaan hal meel ka soo wada jeestaan dhalinyarada hawsha la wadan ay wada qabtaan insha Allahna khayr ay ku dhamaan doontaa sidaan habeenkii ballan qaaday aniga oo u hadlaya magaca bahda reer Sweden insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan casuuno gogol u fidino noo yimaadaan inta halkan joogana insha Allah waa kala sii hadli doonaa waana sii dhameystirnaa insha Allah aad u maasan tahay sanadkan tabcan waxaad ahayd gudoomiyaha suuki 2013 waxa ka dhacay iyadoo sanad walba ay waxyaalo aad u qurux badan ka dhacaan sanadkan laakiin aad ma aragtay garoonka 20 maalintii xiritaanka saan ku aragnay media xiritaanka faaqadada ciyaaraha tabcan si gooni ah ayaa loogu casuumay waxaan ka qayb galay ciyaarihii iyadoo maalin walba la soo gudbiyay marka waxyaalihii ay kugu reebtay maxaa kamid ah sanadkan samarka Sweden ما شاء الله تنيا و سند أدو حسوس بدن بيهت سند وناكسد بيهت وحاكود إن سامح وعمل هذا هذا لم يدعي اللي هلمامي كرنا مرة عبد الناصر وجرته وبلشة الرئيس السويدان وبلشة أدي أد وناكسن
ama aniga baan ka tirsanahay anoona shakhsi ahaan aan ka tirsanahay u ammaanayn dad aad u jecel wanaagga Soomaaliyeed horumarka Soomaaliyeed and shakhsi walba meesha wax ku qabanayna jecel inay yimaadaan wax la wadaaga meel walba horumar bulsho Soomaalida ay wadana hormuud ka ah marka number 1 iidan la hilmaamin karin amaana ay u soo jeedinayna sida sharafta leh ay gacanta nooga geysteen waxaan qabano annaka ma qabsano iyakaan u qabana iyakana way ogsoon yihiin gacan fiican way naga geysteen maasha Allah aad ayaad u mahadsan tahay waxaa jira in kooxo badan ay ka soo qayb galeen sanadkan runtii waxaa xusuus mudan ciyaaraha bilowga maalintii ay bilowdeen waxaan sii saadaalnay oo nini koobkan 3 kooxood uma ku guuleysan doonta qaran tabcan waa la yaqaana waa koox top ah oo maaragtay wadanka Sweden aad looga cabsado aad looga yaqaano koobkana marar badan qaaday waxaa kaloo jiray dahabshiil Norway oo championka sanadkan ah iyo kooxdii nabadda Stars oo ka timid magaalada London laakiin markii dambe saan ku aragnay kooxda ka timid wadanka Norway oo reer Norway habeenkii markay maqleen in finalka yimaadeen baabuurtii doontiisa wada raaco yimid ka waran finalkii iyo kooxda maaragtay ka timid Norway dahabshiil Norway oo isla markaa ciyaaryahanka Caday uu hat-trick uu ka dhaliyay finalka markay isugu yimaadeen iyo kooxdii kale qaran صح kooxda Norway oo dhul aan naga fogeyn horta waa 5 saac ayuu noo jiraa magaalada caasimadda la yiraahdo Oslo meel ka dhowna way jiraan finalkii markay yimaadeen way jirtaa in dad badan oo reer Norway ah oo Soomaaliya ay yimaadeen ilaa aan ku qiyaasi karo 200 oo qof qiyaastay وين أقل من حقيقة دوري طبعاً كيسنا عيارها سعودين سنة ضرب حمان جرين سما فينال أما كفات فينال وحلو ولا أي الجوري بجري مركا ومركو جوري سيقعدوا هذه وهبونتا أنا كانوا وهم بلينا ما شاء الله يعرف عنه يصاب النجان كعادة قرنا تنكون صلابتوان ساداليني وضد كبدن كودوي سادالينيين أنت أنا كأورو كنا هنا ساداشان كسمين كرين كعادة قرن وكوح كديسن ستوكهولم وحافظي دقنتاي لوجو قبت عيارها شعب عرورت ليليس هويوين كودي ولا له هذا يكسر قبل كل مرة بحسينين ديفوز السينين تكلم هذا نقص جرت حتى وقعدة كلية ليش سيريا كعيارتي سويدن وتيم سكوحرن سلا ترينين سلا سمايا ماتش كوضع عيارة مرور بيسكو جوجا مركا إذا أفضل داينة تيم أهان وذا الشقيان كوعدة نبضنا عادي وناكسنيت إن كستو يكو هارتي ريغوروين أما بينالتي وكوعدة كلية أنا إذا هالجول أنا قليل مركز السنة كان أنتي ميت كوحي وإذا جوكت بدن كود عبد الناصر كوحة كلا دعميهن لكن نصيبكم بكوع قاعدة لأنكم بدأ فوتبول لما وضع بديه كوعم بابدس. أوكي وما سنت هاي طبعا هرنا وشكتي مرر بدنا وحن كشكني حلقة أنكو سكنين قروم هذا أي كذا عيان عياره السوكي عيار لما قبنا كرو دولة السويدن قاعدة ينسيسها بوليس كحافظها كأكدو تنستا رينكبي ميلولبا لكن واحد جرى شركة صوماليات وقعن كبحية سيدا الهزر سكول واحد جرى جت 24 واحد جرى كوكل دون أي جرى وحول بفاسيلتي كينا سيدا دهبشيل وكله لا أنتوا عن سؤال لهن مركا مهمة إلى هذا هاي سبورتيك الصومالي قربها تذكر سبونسر كسمي وحنا وشيء أن حقيقة دي وي شركة بدنا نعاوي سنة كان سنة دول بدنا نعاون جري أن الازر سكولان أو سكول كديسان ودك السويدن مقالة ستوكهولم معمولي شيخ بشير أمان ما شاء الله إلى خير الله حسيه أن يد 24 أو أجنسي تكذا ذا وسكنا كديسان حافظن رينجبي يشيستا إيو شركة الدهبشيل أو مربو تاجن هور مركز صومالي دون لهمام مكرن باشي ومسؤول كأن الله حريرنا هالكن لندن ودك لندن دقن يمحمود أو برانشي سوكويا على مقالة ستوكهولم والله بدو في قعنت ويني كان نجستي أن وصحوي يهرتين سبورتيكو أن وحياله بدنا يعاويا مركو كواتو وصهر رئيس مكان سوق بن وعاف ماتك شخص جويل كير داني ردا مركو عياره ومانو بكوبد ديلو وحيل يا عافمات بوح إلى ما بحي لكن عافمات بوحيلها جيركيسا دسمه مسكحديسا دسميسا قفكم مركو مانو بترينين سميه أو دقائق سميه مسكحدنا بنادمكم لا شقينا جيرك لا شقيسا ودسميسا أيضا أن طلبات
sportka wuxuu ka celiyaa dhalinyarada waxyaalaha xun sida drugska qofkii inuu noqdo criminal inuu noqdo inuu raaco bax xun because shakhsiga sportka badanaa wuxuu ku xiran yahay inuu maalintii galabtii dheelo football soo ciyaaro habeenkii markuu guriga yimaado uu xiiseeyo inuu daawado ciyaaraha Premier League iyo ku ciyaaraha Spain iyo ciyaaraha waddanku degan yahay inuu la xiiseeyo uu fiiriyo marka wuxuu ka fogaanayaa intuu la socon lahaa shakhsigii xun dhulkan aan deganahay haddaad saad ula socotid baan qurbahan joognay Yurba waxaa ku badan dhalinta inay criminal noqdaan dambiye galaan ama drugska isticmaalaan ama balwadaha kala duwan isticmaalaan alxamdulillah qofka markuu ku xiran yahay baha sported ama football ha dheelo ama basket ha dheelo ama handball ha dheelo ama athletic ha sameeyo waxay uga fududahay inuu ka fogaado waxyaalaha xun marka annagana waxaan u aragnay iyo dad badan oo Yurubta ku nool bay u arkeen in ay tahay meesha kaliya ee aan ku badbaadsan karno dhalinteena Soomaaliyeed Zuki ama ciyaaraan qabano ama Sweden lagu sameeyaba hada socota sport kaliya waxay imaada wadaadadii ay imaada waxay akhriyaan xadiisidii akhriyaan dadkii diintii faraan jidkii toosnaa allay na amray tusan waxay imaada abwaanadii ay imaada dhaqankii hore Soomaaliya kula hadlaan waxay ka sheekayaan waxyaalaha Soomaaliya ahaan jirtay fankiyaan ku jira oo dhalinyarta hadda marka football kaliya ma ahane waa arrimaha bulshada diinta wixii la soo dhaqankeena ku jira iyakana heesii dadkii maartay wixii aan laga yaabay inuu kooda luuliyo kale xilliga la sameynay dhaca marka kumeekin oo kaliya football seminaraan qabanay sanadka hadda dhawaad soo joogta baadiga waan dhalinyarada u qabanay marka waxyaalo badan waan sameynaa okay aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa booqasho ku yimid adiga Faysal Faarax Makaraan iyo Cabdiweli Maalin Shaaciye ayaa waxay ku yimaadeen maaragtay magaalada London oo waqtigii ciida runtii asxaabta sportiga aan loo kala harin si maaragtay VIP ah oo heer sare ah ayaa lidinku soo dhaweeyay ka waran xafladan aan insha Allah mar dhow aan daawan doono debate ka wada hadalka sportiga iyo soo dhaweynta adiga iyo Weli Maalin ma sha Allah aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadkiina soo dhaweeyay oo adiga ugu horeysid iyo bahda intii kala bahda sportiga reer Sweden aad iyo aad ugu mahad celinaynaa cashadii wanaagsaneed aan noo sameysayna waad sharaf aad ku leedahay waa idinkaga mahad celinaynaa saan marka hore uga mahad celinay annagu goobta joogna waa saxway ciidii ayaan soo gaarnay halkan saan ula qaybsano ciida aan ka qayb galno wadankan bahdan Sweden bahda sportiga aan la kulanno annagu si aniga xaaskayga iyo carruurtayda la socoto welina carruurtiisa la socotay ma sha Allah waad ku sharfantiin waxaan rajaynaynaa insha Allah marka dambe aad soo booqan doontaan inaan saan idin soo dhaweyn jirnay si ka duwan idin soo dhaweyn insha Allah doleerada aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka weyn ee sportiga Suki ee ka dhisan caasimadda wadanka Sweden ee Stockholm oo booqasho ku yimid wadanka Ingiriiska maanta wuxuu marti noogu ahaa saa ku aragteen Studio Universal TV dhanka faaqidada ciyaaraha iminka bal nala daawada qaybtii labaad ee barnaamijkan aan ugu talagalnay oo la yiraahdo Super Suki Sweden Special Program barnaamijkaas oo soo dhaweyntii loo sameeyay maamulka sare saa ku maqasheen Faysal Faarax Makaraan iyo Cabdiweli Maalin Shaaciye barnaamijkan waxaa si qaas ah u soo abaabulay bahweynta sportiga ee magaalada London oo aan loo kala harin waxaana inoo daadihinaya madaxa sportiga University TV Cabdiqaadir Maxamed Faarax Biriq qaybta labaad ee barnaamijka waxaa cameraman-ka ahaa Cali Naaji qaybta koowaad waxaa ka ahaa Cabdixakiim Fiqi ayaa ka ahaa waxaa editing-ka ahaa Jibriil Maxamed Jibriil iyo Cabdiqani Maxamuud Bac intaan hadal ku mid doono anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil iyo gudoomiyaha Suki Faysal Faarax Makaraan waxaan idinkaga tegayaa daawasho wanaagsan qaybta labaad ee barnaamijka soo dhaweynta iyo wada hadalka sportiga ee ka dhacay galbeedka magaalada London bismillahi raxmaani raxiim aan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay caawa xafladan qiimaha iyo qaayaha leh lagu soo dhaweynayo madaxda sare ee Suki oo ah ururweynaha Sweden ee kubadda cagta maadaama ay qaadatay hooyadii kubadda cagta ee Yurub inay nagala soo qayb galaan oo ay yimaadaan caawa halkan ku casilno aad ayaan ugu faraxsanahay
faysal faarax makaraan iyo weli maalin shaaciye runtii waxaan leeyahay dadkii ka soo qayb galay iyo guddiyada iyo ururada iyo madaxda sare ee isboortiga ee soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan xogayaha kubadda koleyga saciid faarax ducaale iyo baarijab runtii oo ah niman aad iyo aad wax ugu soo qabtay isboortiga shulolbas daargacame bile inta kaloo aan soo koobi karin aan sheegay iyo xildhibaan cabdileeg iyo xildhibaano kale oo nala joogo sida jidoo kale runtii iyo ambasador caalin gabdhaha jabiili iyo nala jooga iyo sabaax oo kale runtii adeer soo maray runtii isboortiga maanta waxaan u malaynayaa dad sharaf iyo maamuus ku leh ayaa maanta halkan fadhiyo runtii aan dhihi karno dadkan waxay yihiin dadka keliya ee masali kara isboortiga maanta waxna u qaban karo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida keliya waqtiga usoo geliseen iyo sida uga soo qayb gasheen maanta caawa xafladan qiimaha leh ee lagu soo dhaweynayo oo loo sameeyey guddoomiyaha ururka suuki faysal iyo weli maalin runtii oo ah nin aad iyo aad ciyaaraha sweden wax ka qabta marka waxaan dhihi lahaa soo dhowaada barnaamijkeeni waa inoo furan yahay bismillaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay hor tawfiiqda hana waafajiyo ilaahay quluubtayda ha isku keeno inta kala jeeda ilaahay ha isku keeno labaad waxaa mahad leh dadkii soo qaamqaamiyey ama soo abaabulay xafladda yarta ah loogu talagalay labada ninoo isboortiga ah ninna hadda guddoomiye ah ninna ah guddoomiyihii hore oday isboortina ah yaa loogu talagalay iyo odayaasha meesha fadhiyo halka waxaa jiro xildhibaan cabdidheeg ahna afhayeenka guddiga olombikada dhile xildhibaan cabdiqaadir macalin daahir ambasador caalim intaasoo dhow la sheegay aan haddana aan ku soo celiyey aad iyo aada u mahadsantahay midda kale sweden suzuki waxaan ku jira aniga odayaasha ay casumaan waa sanadkii afraad la casumayo waxay mudan yihiin shacbiga sweden iyo guddigooda isboortiga in lagu daydo siday wax u abaabulaan iyo shacbiga siduu diyaar ugu yahay 14 cisho ciyaaraha socdaan inay garoonka soo buux dhaafiyaan taa caado ay leeyihiin way reer Stockholm waxaan leenahay marka ama aan leeyahay caawa waa fursad waxa halka fadhiyo intii lahaa isboorti waa ugu magac weyn yihiin ama waxbay qaban karaan dhibaatooyinka jiro in loo wada jeesto ayadoo nin lagu xumeynaynin ninna aan lagu cirsanaynin isboortiga ninna ma laha isboortiga waa noo dhaxeeya isboortiga waxyaalo badan laga soo qabtay gabdho iyo wiilal aniga oday yaan ahay 70 jir ah markaan dhibaatooyinkan arko waa ka ilmoodaa waxa socdo wax la isku haytana ba taqaanid ninba ninka kale oo hirtinaya hirtida hal la joojiyo hal isku yimaado wax hal la qaybsado Soomaaliland u shaqeynayna Soomaali waxaan ugu qabanno qodobka soo baxaya oo isboortiga ugu soo baxayo gacan hal la siiyo waxaan aad ugu faraxsanahay wadaayta u sheegay shaaciye ama mari waalin in ay fursad fiican noo tahay dadkeena reer London ah inaan isku aragno soo dhaweynta dadka ma gaari karno oo waan ka yeeray ciyaarihii lagu qabtay maxaa la yiraahdaa Sweden Stockholm sanadkii saddexaad aan tagay waa ka qayb galay laakiin heerkay wax u maamulaan annagu ma awoodi karno oo balaaya naga dhex guuxaysa inganaysa laakiin runta diin la sheegay waxay noo tahay fursad wanaagsan oo aan yani idinku aragno idinku soo dhaweyno marka waxaan leenahay fursadan yani soo dhawaada annaga waxaan way xamar oo kale anagoo joogna waxaan leeyahay haye maalin faysal waa joogtaa Soomaaliya hal warkay waana ka dhuumanaynaa maartay laakiin Stockholm meel lagu kala dhuunto ma aha London say maartay waa adagtay si la isku arko oo dadkeena hadda inta jooga inta badan London waa joognaa hadeer uu weydiinay xildhibaanka oo leeyahay London ma soo degtay 3 sano degana iskama warhayno magaraysa magaalo weyn waay marka waxaan ammaan gaar u jeedinayaa shukri dalbaas oo magaalo kale markii durbaan la yaariyo sport laga hadlayo meeshaas ka timaada oo
aysan ka harin gabdhaheeda maaragtay had iyo goor maaragtay waddo waana wax lagu faano maaragtay waxaan leenahay maalin iyo gabdhahan maaragtay reer isboortiga sheegaya aqoon badan isuma leyn laakiin waxaan leenahay waa wanaagsantihiin inaad dhiirigelisaan isboortiga waan ka naxayna markaan aragno cayaarihii oo weli ay ku jirto maxaa la yidhahdaa Serie A iyo North London iyo maxaa la yidhahdaa Somali Week loo kala qaybsan yahay waa wax laga naxo maaragtay ma gaari karno maaragtay Sweden oo kale si maaragtay ay rotation u sameeyaan oo kooxdooda sanad walba ay yani dad gaar ah oo isla iyaga ah ay hoggaanka u qabtaan anagoo dadka anaga da'deeda oo kale ma raadinayno horaan u soo aragnay cayaaraadka maaragtay intaadnaan dhalan baarejab aabihiis aan guddi ku wada jirnay magaranaysaa iyo saciid faarax aabihiis iyo isnaqiino maaragtay marka yani farxad bay noo tahay ilaahay cumriga noo sii dheereeyo maaragtay weli waa jecelnahay inaan sii joogno maaragtay laakiin waxaan jeclaan lahayn in aad yani isboortiga ka dhaaftaan maaragtay qolo iyo waxyaalahaas oo la walaaloobo la isku arko la wada cayaaro magaranaysaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta xafladan aan ka soo qayb galno lagu soo dhaweynaya walaalahayn Faisal iyo Weli ani naftiga marti aan ku ahay laakiin waxa sharaf ii ah anigoo marti ah inaan dan idinku soo dhaweeyo London maaragtay groupka Seiko la dhaho waxaan kala soconaa inta badan anaka reer North America waxaan kala soconaa website-dan kala soconaa 2010 maraan imaaday Sweden waxaan u arkay in ay yihiin dad marka well established ah oo aad u fiican waxaan u arkay markaas waxaa jiray group kale oo la yiraahdo Skifo yes labadaas group midba waxay kala qaateen sidii ciyaaraha u kala qaybsadeen qolana soccer-ka qabanaysa qolana basket-ka qabanaysa marka waxa u jeedaa in ciyaaraha ay farbadan yihiin haddii oo qolo ay qabato group oo wax qabto meel oo qabto group kala ducaad waxaa ka soo bixi kara maaragtay wax fiican ka soo bixi kara waxaa daran hal mar in la wada qabto hal ciyaar la wada qabto hal community loo qabto dad problemka kaas ka imaan kara marka mar labaad waxaan leeyahay ku soo dhawaada London aniga naftigeena waa ku soo dhawahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim runtii horta aad waxaan ugu faraxsanahay caawa xafladan loogu talagalay walaalaheen reer Sweden oo halkan lagu soo dhaweynayo horta marka ugu horeysa waxaan leenahay ahlan wa sahlan beledkan beledkiina waay midda labaad waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan maadaama aniga aan tegi waayay dhinaca Sweden maadaama dadkii maamulka ay joogaan wixii aan xagga jeedin lahaa iyagaan sii siinaya marka horta runtii waxaan jeclahay aan leeyahay makaraan waa ma aha markii ugu horeysa aan arko sanadkii hore ciyaarihii olombikadana uu u yimid inuu maaragtay Soomaaliya kooxdii orodada iyo ka qaybgalkii olombikada inuu nala soo dhaweeyo oo ku jiray xataa wuxuu ka qayb galay xafladii maxaa la yidhahdaa ceremoniga ugu horeeyay Soomaaliya oo ku jiray marka horta mar labaad waxaan ku leeyahay ahlan wa sahlan tan saddexaad waxa waaye waxaan jeclahay maadaama idinka reer Sweden aad ku mashquulsan tihiin ciyaaraha gidina ay amaanayaan Sweden inay yihiin dad soo dhaweeya dadka ciyaaraha si fiican u qabta hal gacanna wada ah aad ugu faraxsanahay laakiin waxaan rajeynayaa in aynan ku koobin kubadda cagta oo kaliya please sanadka dambe waxaan jeclahay in aniga naftirkayga Sweden imaado aan ka qayb galo iyadoo dhacaysa tartan kubadda kolayga ah insha Allah gabdhiyo wiilal السلام عليكم دمانتين وسلامتين runtii markasta farta waxa lagu soo mudayaa reer UK maaragtay reer UK waa inay hurdada ka kacaan at least ay maaragtay hal meel isku wada yimaadaan waxay qabanayaan inay iskala qaybiyaan aysan hilmaamin basketballka wiilashan walaalaheena markasta ciyaaraha ay qabtaan footballka Suzuki runtii way ku mahadsan yihiin haddana waa waajib saaran caruurtii maaragtay inay ka celiyaan waxyaalaha maaragtay dhibaatada keenayo
like drugska like maaragtay terrorist inay maaragtay waxyaalahaas ay sameeyaan marka waxaan idin leenahay horta hore waa shaqo wanaagsan aad qabateen ammaan baa ku leedihiin haddana waxaan idinka codsanaynaa oo idinka baryaynaa in aad dadkan UK jooga inaad maaragtay xoogga saartiin si aad iskugu keentiin ay timeka u kala qaataan haddii ilaa yiraahdo don't forget basketballna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هابين وناكسن وفرحت إلى نكو كلنا سودوينتا فيصل إيو ولي وأكو فرح سنة هاي إنا عاود لقادا إنه عن إذا كلنا لندن وحد بالشدة وقبطان أو ليدو كأمانة أنا وليجسي أو قتة ساندتك وحان معنا فرحت يا عاود إنا سعيد فارح أدير سومري بارجب عالن bile shido ragga odayaasha ahaa macalinka aan caawa la fadhino oo aan hortooda maaragtay ka qirayno inaad wax badan qabateen anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay waxa bulshada u haysaan ha ka daalina dhibaato badan baa imanaysa waxyaabo badan baa jira inaad u dulqaadataan reer London waxa malayna wax weyn ma jiraan dadku fikradda ku kala duwanaan karaa laakiin waa in laga midaysan yahay danta guud oo taas ah muhiim ah anigu waxaan rabaa insha Allah mustaqbalka dhow reer Sweden especially Suki inaan idinku casuno Puntland waa timaadaan wanaaga aad ka haysaanna aad istaan dadka waxaad halka ka haysaan waa idin soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin bahda isboortiga mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo magaalada London Weska saaxiibaday madaxda Sweden Suki isboortiga Faisal iyo wali maalin waxaan idin leeyahay soo dhawaada shaqada aad haysaan ummadda Soomaaliyeed u haysaan iyo dhalinyarada ee looga hortagayo waxyaabaha xunka ah halkiina ka sii wada waxaan rabaa hal eray inaan ku darsado ah dardaaran ah in aan taageerno Olombikada Soomaaliyeed iyo wasaaradda iyo xiriirka sidii aan isugu xiri lahayn isboortiga Soomaaliyeed sidii kor loogu qaadi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib marka hore waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada London saaxiibadeen Faisal Makraan oo ah gudoomiyaha ururka Suki 2018ka iyo gudoomiyihii hore weli maalin waxaan leeyahay maaragtay magaaladiina ku soo dhawaada runtii ma aha markii ugu horeysay maaragtay casho sidan oo kale aan u qabanno ururkan Suki waxaan gaarnay reer London haddaan nahay inaan maaragtay qorituurka ciyaaraha dhan waa halkan ugu qabanno laba jeer marna aan Leicester ku qabanno marna aan ku qabanno magaalada London waana waxay ayaga ay matoosteen maxay yeelay annagana maaragtay waxay og yihiin kalsoonida ay nagu qaban awadeed ayaan gaarsiisay inaan maaragtay ciyaaraha aan u qabanno walow aan maaragtay aan dadaalkeena aan gaaraynin maaragtay ciyaaraha ay qabanayaan inaan qaban karin hadda iyo mar u dhow marka waxaan leeyahay Suki maaragtay weli iyo Faisal ku soo dhawaada runtii ma aqaan caawa jaga aan sheegto farxad daraadeed maxay yeelay haddaan dhihi lahaa ciyaartoydii hore madbacadda haddaan dhihi lahaa ciyaartoydii qaranka haddaan dhihi lahaa jagooyinkaasna waa soo qaatay mar waxaan noqday hadda siir aada waxaan u ahay saad ogtihiin afhayeenka laakiin waxaas waxaa hadda maaragtay caawa igaaga soo ka maray maaragtay ururkayga Suki oo aniga laftadeeda aan ka tirsanahay oo ah dhanka farsamada aan u joogo marka caawa waxay noqonaynaa maaragtay aan ku hadlo magaca guddiga farsamada marka waxaan leeyahay weli iyo maaragtay Faisal halkan ku soo dhawaada runtii waan ognahay maaragtay Sweden inay tahay hooyiga maaragtay amba hooyada sportska maaragtay qurbaadsan u nimid maaragtay meel badan lagu qabto arrin laakiin runtii anigu ma arkin Sweden oo kale meel ciyaarahooda iyo ciyaar wax u dhow xataa ma arkin maxaa yeelay runtii waxaan naqdayba maaragtay ninka ugu badan ee ciyaaraha maalintii bilaabeen ilaa hadda aan sanad aanan ka baaqanin ah taasna waxay dareemi kartaa maaragtay soo jiidashada ay soo jiidanayaan wanaag iyo ciyaaraha ay u qabanayaan meeshaasna waxaad ka dareemi kartaa meesha mar walba sportska isugu tagay dad aragto waa meel cadaalad ku badan tahay marka meeshaas maaragtay ururkan waxaad dareemi karaa ciyaaraha ay qabtaan ciyaar inay yihiin ciyaaro maaragtay cadaalad ay ku badan tahay runtii waana soo noqotay runtii aniga nafsadeyda 7 sano ugu dambeeyay waxay ii doorteen maaragtay xagga farsamada marka sportskana waa ogtihiin ciyaaraha hadii la qabanayo mar hadii ciyaarahaas ay cadaalad aysan jirin ciyaarahaas way baaba'ayaan marka ciyaaraha cadaaladooda ayay cadaalad ay ku socoto awadeed ayay maaragtay ay horumarkaas ku gaareen waxaan leeyahay maaragtay reer Suki mar labaad iyo mar saddexaad halkan ku soo dhawaada horta marka ugu horeysa waxaan salaamaa dadka meesha iskugu imaaday marka soo dhawaada weli maalin Faisal Makraan iyo martida banaanka nooga imaaday Baarajab iyo Saciid Faarax
reer london haddaan nahay waxaan ugu barateen waa isdagaashan yihiin iyo waa samaysan yihiin annaga ma isdagaashanin fikirkaa lagu kala duwan yahay oo wax yaroo khilaafaa jiro kaasna waa la dhammaynaya ilaa idinkiis oo hadda ka horba waa u istaagnay waxaan isku daynay inaan dhammayno waa dhammaynay haddana wax yaraa socdo marka inta yarna raalli hala ahaado dadka oo martida noo imaada oo arkay in maaragtay khilaafaad jiro insha allah waa ka baxaynaa khilaafkaas waana u taaganaa mar walba in dadka sportska waa isku wada mid meel la arkoo tagto intaan la tegaysa meel casho walboo la tago waa dad iswada yaqaanana amba sweden ka imaaw amba canada ka imaaw hal meelaan u wada jeednaa hal hadafaan leenahay hadafkeenana waxaa waaye in dhallinyarada yaryarka oo soomaalida amba qurbaha ku noolaadaan amba soomaaliya ha joogaan la garab istaago lana taageero olombigadeena waddankeena soomaaliga waa dowladdeeni wax walbana waxaa loo baahan yahay maarata in garbaha la isqabsado gacmo wada jir ay wax ku gooyaan marka aan isresbagtayno ninba ninkuu ka weyn yahay ha resbagtayo soo maraya noogu weyn caalana weyn dadkii laacibiinta qaranka u soo dheele qof walba resbagtadeeda ha la siiyo bismillahi raxmaan raxiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan magaalada london ku soo dhoweyno walaalkay faysal iyo weli oo labadooda nooga yimid sweden runtii waxaan leeyahay soo dhowaada london waa tanaa waana run waa la wada sheegay waxaa la yidhi in lagu daydaa mudan sweden waana ku daynayna hadduu alledin swedenna waa soo martay runtii swedenna horey u soo martay oo khilaafkan way soo mareen wayna ka soo gudbeen laakiin waxaan dhihi lahaa inay nagula taliyaan wixii iyo caqabadihii ay soo mareen sidii uga soo gudbeen inay talana siiyaan aan ficnaan lahayd annagana waa ka gudbaynaa insha allah welcome to london soo dhawaadaan dileena wasalaamu calaykum bismi illaahi raxmaan raxiim marti sharafta odayaasha iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulligiin horta waa idin salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka waxaan rabaa inaan halkan runtii aan ku soo dhoweeyo marti sharafta qaaliga ee nooga timi muxuu ahaa sweden faysal makaraan iyo weli waxaan leeyahay kusoo dhowaada kulley waxaa waaye dadka isboortiga waa is yaqaanaa meel walbo la joogo kulley sweden waa aragnay waxyaabaha ka samayseen aadaan idiin soo dhoweynaynaa kusoo dhowaada london haddaan nahay bahda isboortiga reer london waa idin soo dhoweynaynaa si sharaf leh waxaan kaloo runtii rabaa inaan soo dhoweeyo muxuu ahaa baarajab iyo siciid iyagana oo yacnaha marti noo ah naftikooda kusoo dhowaada london kulle london dhowr maraa timaadee idinka marka kulligiina waa salaamantihiin runtii waana wax fiican runtii qof walba isboortiga inuu soo dhoweeyo bahda isboortiga meel walba ay joogto waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat run ahaantii caawa xafladdan lagu soo dhoweynayo nimankan walaalaheen suki madaxda suki weli maalin shaaciye iyo maaragtay faysal makaraan iyo weliba baarajab cumar baarajab iyo siciid faarax ducaale run ahaantii ma aha markii ugu horeysaa london imaataan mar walba yacni waa welkamaa tihiin waa meelaa imaan kartiin aniga run ahaantii dee ani ahaan suki markii laga hadlo waan ka mid ahay waan ahay raggii bilaabaan ka mid ahay muddo maanta sanadka dambe insha allah 9 sano ay jiraan sanadka dambe 10 jir ay noqon doontaa hadduu ilaa yaraan sanadka 10 guurada waa tegi doonaa hadduu ilaa yaraan sweden waxaan idin leeyahay run ahaantii markii ugu horeysaa magaaladan imaataan ma aha 2005kii ayay ahayd markii ugu horeysay halkaan imaanayeen ee magaca suki dadka la baraay maantana run ahaantii meeshay marayaan iyo waxay yihiin dadka dhan waa la ogyahay maasha allah madaxda isboortiga master baarajab iyo siciid faarax ducaale hawsha aa qabateen iyo waxaa qabateen mid yacni ilaahay ajar ha idinka siiyo ma aha wax la sheegaayo ma wax muuqda waaye ummadda ay wada og tahay baasketka annaga haddaan bahda kubadda cagtana waxaan jecelnahay insha allah inaan idinkaga dayno waxaa la yidhi wixii wanaagga walaalkaa waa looga daydaa inaan idinkaga dayno insha allah aanan noqonno sidiinoo kale kuwo horumar gaara oo maaragtay wax qabta sidoo kale waxaa salaan gaara idinkaga wadaa kulligiin guddoomiyaha ururka qurbajoogga midaynta mudane axmed nuur maxamed xaashi sayga ruushka oo saacad ka hor aan kala hadlayo magaalada muqdisho runtii wuxuu yidhi dhammaan iga gaarsii madaxda suki iyo kulli bahaweynta isboortiga iyo guddiga olombikada iyo xiriirka gaar ahaan xiriirka kubadda koleyga soomaaliyeed aad iyo aad ayaa u wada mahadsantihiin soo dhowaada magaalada waa magaaladiina waana ilaahay idiin nabadgelyo bismillahi raxmaani raxiim okay mar rabo wax badan inaan ka hadlo waxaan rabaa maaragtay insha allah inaan idiin soo gaabiyo waxaan u malaynayaa maaragtay in waxaan ahay macallinka kooxda london star waxaan u malaynayaa maaragtay macallimiin badan oo soomaali inay jiraan laakiin anu waxaan aaminsanahay maaragtay
meelo badan oo Afrika waa soo arkay shanta Soomaaliyeed waa soo arkay ilaa Jigjigo Kenya waa tegey Somaliland waa tegey Muqdisho waa tegey runtii waxaan u malaynayaa maaragtay anoo isku kalsoon Gambia iyo meelba Djibouti Afrika North America meel walba kooxdeeda koob waa ka soo qaaday waxaan aaminsanahay niyaddeeda maaragtay macallin aniga mataqaana aqoonteeda aysto oo Soomaaliya inuu jirana hadda aaminsanahay marka waxa kale oo rabaa inaan idin sheego intaane waxaan u malaynayaa maaragtay haddii aan maqashaan macallin daahir macallinka ugu fiican Soomaaliya macallinka maqashaan waxaan u malaynayaa maaragtay kooxda suuka haddaysan ahaan lahayn ma noqon lahayn raggan raggii mataqaana isoo barbaariyey raggii ugu horreeyey Sweden ciyaaraha aan ku bilaabay ilaa North America Djibouti Gambia Finland Sweden UK meel walba aan tago raggii ugu soo barbaariyey waa suuko raggan Sweden koox badan ayaa qaban jiray ciyaaraha laakiin kooxda suuka waa kooxda gacantii soo qabtay waa kooxda ilmo yar aan geyn jiray oo 16 jira ilmaha yarka aan geeyo waa ragga meel ii seexin jiray oo ay ku raashinka siin jiray tigidhkayga caawin jireen wax walba waxaan kaloo soo raacinayaa sida North America Toronto kalena in ragga joogo waa ragga iyagana aan weligaa hilmaami karin caruurta yararka ay la gacan qaban jireen marka insha Allah waxaan ku soo goobayaa maaragtay kooxda suuka iyo North America waa laba wadan maaragtay aad u fiican haddana ciyaari anigu waa iska joojiyey insha Allah waxaan ku wareejiyey macallin weyn isagana oo ciyaartoy weyn ah Calmire ayaa kooxdii wada haddana codsi badan ayaa ii yimid Sweden maadaama 3 sano aan ka qayb gelin marka insha Allah madaxdiina hadda waa joogaan haddii noo ogoliyeen waxaan rabnaa inaan sanadka soo socdo inaan kooxdii ku soo celino maaragtay haddii noo ogolaadaan بسم الله الرحمن الرحيم مرت شرفتا odayaasha rugcadaaga isboortiga iyo maamulka isboortiga Soomaaliyeed baahda TV-ga waa ku mahadsantihiin xafladda quruxda badan ee aad caawin maartay noo qabateen gudoomiyaha ururka Zuki iyo Faisal Makraan asagana maamulka ururka Zuki welcome ku soo dhawaada xafladatan anigoo ah ciyaartooygii hore ee barasamaadka Soomaaliya kana tirsan ururka SSUK aan ka ahay gudoomiye ku xigeen ciyaarayna mar dhow inoo furmeen duraad ku soo dhawaada iyagana waxaan jecelnahay inaan noogu timaadaan xataa ciyaarayna waa socdaan kulleytaba London waxaa ciyaaro badan ayaa ka socdo oo qaybo kala duwana kubadda cagta basketka saan u malaynayaa isaga inuu bilowday in kala moogi laakiin madaxdii basketka inoo joogto xogeeyaha maaragtay goos basketballka Soomaaliya soo dhawaada welcome waxaan jeclahay insha Allah maaragtay inaan laftigeena aan marti gelino ciyaartooyda nooga timid banaanada sida Sweden iyo Danishka iyo Scandinavianka oo dhan anaa insha Allah ciyaar u qabano laftigeena anaga urur gooniyana waa nahay oo South Hall dhankeedaan jirnaa ciyaaraan qabanaa oo kala duwan marka insha Allah kulleeta soo dhawaada welcome soo dhawaada London bismillaahir rahmaanir rahiim waa idin wada salaamay aqyaarta sharafta leh martida noo ah nooga timid Sweden aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin welcome London ayaa idin leeyahay howlaha badan aad noo qabateen aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin special ciyaalka aad soo kiciseen aad baraarujinaysiin teeda kalena waxaa idinka codsanayaa maadaama annagana reer UK aan nahay in ciyaalkeena aad sidaas isi la mid ah aa wax ugu qabatiin waadna ku mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan marka kood waxaan mahad celinayaa dadkii qabanqaabiyey cashadan ugu horeysa bahda reer London Universal TV walaalkay Cabdinaasir Biriq Seef Daus Bile iyo dhammaan intaan magacyadooda hantaan soo wada haleeli karin maaragtay oo ah asxaabta noogu imaata xagga mar walba marka labaad waxaan rabaa wax yar inaad ka taabto ururka Zuki dadka badankood way maqlaan waxay ka arkaan internetka waxay ka arkaan TV-da laakiin qaarna way noo yimaadaan qaarna nooma yimaadaan ururka Zuki wuxuu ka dhisan yahay dhowr iyo 20 xubin ayuu ka dhisan yahay xubnahaas ayaa waxaan sameynaa sanad walba qof ayaa wuxuu noqdaa gudoomiye inteena kale tan waxaan nahay xubnihii kale ururka hawlihii kale loo qaban jiray marka sanadkan 2013 aniga ayaan ahaa waxaan rajaynayaa in kastoo hadda qaar igu daba dhagan yihiin
inaan ku wareejin doono qof kale sanadka soo socda insha allah haddii la yidhahdo marka labaad xubnaha kuma eka keliya inay Sweden kaliya degan yihiin waxay degan yihiin Europe oo dhan UK dhowr qof ku jirta sida Bile Safe ayaa ugu jira Denmark Norway ilaa Soomaaliya hadda xubnahan ku soo darnay waan rajaynaynaa qof walba oo jecel ama xiiseynaya ama fikir ku soo kordhinaya ugu soo qayb gali karaa waan u furan tahay waan soo dhaweynaynaa markaan ka soo gudbo ururka Suzuki waxaad ku taqaanaan oo kaliya inuu ciyaaraha qabto labadii sano ee la soo dhaafay ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynay inaan caawinaad aruurino 3 dhalinyaro ilaa 6 dhalinyaro anagoo iskaashaneen urur la yiraahdo IA Foundation aan jaamacada ka bixino Muqdisho iyo Boosaaso dugsiga sarena aan ka bixino ilaa hadda waxay gaarayaan tiradii ilaa 16 dhalinyaro ay gaarayaan inta jaamacada ay dugsiga sare dhigata sanadkii haddaan ku jirno bilowgiisii aniga iyo xubno ka tirsan ururka waxaan ka aadnay Muqdisho waxaan soo furnay xafiiskii ugu horeeyay ee aan ka soo furno magaalada Muqdisho oo aan ahayn mid sport kaliya ku eg laakiinse noqon doona caawimaad hawshiisana ay bilaabatay alxamdulillah maantana 6 qof ay shaqaale ka tahay xafiiska ka shaqeyso dhawaana aan rajaynayna inaan dhisno iskoolo gobol ka mid ah Soomaaliya oo aan hadda rabin inaan ka hordego hadduu la yiraahdo sanadka dhamaadkiisa waxa qorshaha noogu jirta sanadka dhamaadkiisa bishan December ama ilaa February sanadka soo socda inaan gobol kale ama magaalo kale oo ka tirsan dhulka Soomaaliya ama dadka ay Soomaalida dhulka ay degan tahay dadka afka Soomaaliya ku hadla waa Great Somali dhulka loo inaan ka furi doono xafiis kale insha Allah hadduu la yiraahdo oo aan isagana wax ugu qaban doono taas waxaan rajaynaynaa in gacan laga geysto annagoo marka koowaad gacanta koowaad ka helna dawladda Sweden iyo bahda sportka reer Sweden idinkana waxaan jeclahay gacan ka geysataan gacantu ma hayna dhaqaale kaliya dhaqaale u baahannahay waxaan u baahannahay fikirkiina waxaan u baahannahay taladiina ayaan u baahannahay insha Allah hadduu la yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa tii ugu dambeysay oo ah tan bahda reer London walaalayaal dhibkaan taagantiin horaan u soo marnay xaqiiqdii waa midnimadan ka hadlaya Soomaalida waxay ku maamaadaa dab niman ku guban baan ka leexan marka annaka horaan u soo marnay 2 sano waxaan ku jirnay mugdi ah 2 meelood waxaan ku kala qabanaynay ummaddu xogaa kala duwanaayeen adiga la isku culul fiyoobeen anyway alxamdulillah ku soo gudubnay waxaan nagu soo siyaad ereyga la yiraahdo tanaasul oo waana ka dhexdeena isku gacanta isgelinay isku tanaasulnay qaybsanay haddana isla shaqeynaa midna ku ah bahda sportiga waxaan jecelnahay in idinkana sidoo kale noqotaan xaqiiqdii markaan walaalkay balaagu u dhahay ciyaaraha ka soo qayb galan waxaan joogay furutaankii waxaan joogay SSUK Seriaga waana joogay furutaankii Somali Week waan ka jeclaan lahaa in hal meel ay ku wada qabtaan la isku yimaado laakiin sama noqon waxaa haysataan jaanis fiican waxaa idii jooga odayaashii sportiga Soomaaliya waxaa idii jooga dadkii qaran ku dheelay heerka koowaad heerka labaad waxaa idii jooga macallimiintii waxaa idii jooga dadkii caan ku ah intaas annaka ma haysano intaas waxaan jeclaan lahaa odayaasha intay isku tagaan fikir keenaan dadkaan say ku midayn lahayn ay isku dayaan because markaad midaysan tahay waxaad wax u qaban kartaa nafsadaada ciyaalkaaga iyo wixii bannaankeena looga baahan yahay dad baa na soo eeganaya na soo daawanaya dhahaya maaragtay dad walaalihiin baa xagga jooga oo ciyaaraya wax u qabanaysaan haddaad kala daasantihiin wax u qaban maysaan barnaamijsanahay marka walaalayaal iyo mar saddexaad waad ku mahadsantihiin annagana aad baan u jeclaan lahayn ama u jecelnahayba saan idinka la soo qayb galnay Londonna meeshii markii noogu horeysay mar walba imaan doona waana mahadsantihiin waxaan kaloo aad u salaamayaa macallimiinta Saciid Farax Ducaale iyo Baarajab iyo kana marti ah oo igu soo dhaweeyay waxaa la yiraahdaa ninkii jeebkiisa wax ka siiyay rag dheh ninkii jeebka wax ka siiyay rag ka dheeray iyagoo marti ay waxay yiraahdeen soo dhawaada ee nagu soo dhaweyn markii idinka waa mahadsantihiin walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaa sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno kulankan iyadoo caawada ay joogaan bahweynta sportska odayaashii rag iyo dumar oo naga mudnaay inay maanta hadlaan laakiin waa aqbalnay sidii sharafta lahayd ay noo siiyeen warka waana ku mahadsantihiin mar rabo maadaama guddoomiyihii ururka Suki uu dharaandhiriyey waxyaalihii waxqabadka ah laakiin waxaan rabaa inaan hal kaliya ka hadlo oo noo soo jeediyey Baarajab oo ku saabsan xagga basketka waa xasaasi haddaan nahay ururka Suki waa haddii ay timaado baahi kubadda kolayga oo wax kaamilo la leeyahay
waxaan isku dayaynaa in wax ka qabanno laakiin inta ka horeysa waa ka gaabsanaynaa maadaama rag axsaabteena ay wax ka qabtaan marka haddii laakiin requirements nagu soo naqdo oo inaan wax ka qabano loo baahdo waa soo dhaweynaynaa waana mahadsantihiin idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon